هذا صومري داخل كي يا عبد الرحمن كي لبات أما الثاني يا عبد الرحمن الثالث إنه لو قلت المامو يسد هشام كي كوات كي لبات كي صدحات عبد الرحمن الثالث أو عبد الرحمن الناصر نك الله يقانه وحكومة يودن كاسي كنتن سنادات لبي تنشري سوق أبو قبصدي وأنا مرر كي وقرح بدنيت بودن كاسي جارسي ننكرتله والله كعبسله والدولة حوجان دستي وثورات كي وحي كسهر شيء دورنا كتخلصي وبلادية دولة الإسلام كماشة دولة قروح بدن لبوكتجي مركز عبد الرحمن الناصر دولة دي قروح بدنيده وكتجي إن كيسي بعد حلي لو رجع الحكم ابن عبد الرحمن الناصر الحكم وحنين عالمة أقوم بدن دين شعل الله كعبس بدن دولة دجن هلي isna dhanka cilmigu isaga faafayba waa maktabadihi caalamka ugu waaweynaan ninkii samaystay 400,000 oo majalladood bay maktabadiisa ka koobnay isagu nin caalima oo faqiih abu ahaa muddo haystay laakiin qaltati ugu weynayd buu galay bay yiraahdaan dawladii aadka u ballaadnayd ee meesha ka talinaysay markuu ka geeriyoonayay inama waaweyn ma lahayn inan yar oo dhalay ayuu ka dhigay inuu leeyahay wilaayada isaga dabadi culimada ugu daaweynaysiisa 12 jir bay ka dhigaan taariikhda kuwa ugu yareeyana 7 jir adigu nin 7 jir meelahaasi ah daadiisu هشام ابن الحكم ابن عبد الرحمن الناصر نكي لو رجري هشام الثالث نكوي قانين اما المؤيد بالله لغه المامو هشام كامركي ماشى لو ديبي هشام المير بوها ما دام المير اسكاها وصيبه سميا ما عد إلى لسه سجى سلانه هويا يلا نو كله تاريخ داسي مرة بالتفصيل إنه نقول ربا وحمر ربا مواضع ودن لأن هين نقعده وحاسكو قبصدي الدولة ديبة نين ليلاد محمد بن أبي عامر ونين قبيل يمن أسل كيسو كسو تشيدو الحاجب المنصور نك الله بحيويان حاجبكو تاريخ ظاهره ورئيس الوزراء وكله نك أون بقرك ورك على كلا الدرة أي حاجب لورن شري حاجب كاسي تاريخ الإسلامي جوهره حاجب كاللقب لو ما سبعين شرين بقركم باللقب لحان شري المنصور بالله وحي إنه مقالله المقتدر بالله القادر بالله مقعية داسي بقر هذا لحان شري لكن حاجب كي وزراء ما لحان شرين نيجاني ما دام الدولة دي قاعدة تسكجر دي لقب وسمايست المنصور لا يراهده سجى قبصدي الدولة دمانتد نمانكي أكتيس سومر مريين وكتخلصي صدق نبالة الماما أكتيس كرد الدوامة وسلا وحبك وقبصنا يعني مكيدو ينبوس ما يبيد هذا صدق دي وكتخلصي الدولة دي سجى قبصدي ويلكي يرانا وحيرين يربع تهاي عبادة يسوع بقرض الله ما صاقله هلكا كتير meel buu ku xidhay bay yiraahdeen oo iska joogi jiray xataa markuu soo baxayo dumarka lagu dari jiray koox dumar inta la raaciyo farda la saaro barnaskan ay qaataan hal yiraahdaa Marookaanta iyo Maghribta idin arka koofiyadan yar ku samaysan qamiiska ma rag iyo dumar baa nooc ku samaysan bay qaataan nooca inta loo xidho baa la yiraahdaa barnaska la yiraahdo ayuu xataa lagama dhex garan jirin bay yiraahdaan dumarka uu la socdo iyo kooxdaasi galbinaysa cidima arki jirin waa iska cibaadeysan jiray meeshiisaas iska joogay ninkan la yiraahdo al-Haajib al-Mansuur baa dawladda haystay laakiin nin aad u cajab badan buu ahaa dawladdii wuu sugay waxyaaba cajabana waa laga tilmaamaa konton iyo laba dagaal buu galay intabana wuu guuleystay culimada qaarna konton iyo afar bay sheegayaan لكن إمام الذهبي كنتن يلا بكرجيا كنتن يلا بده قلبه قلي كنتن يلا بده غزوة وقلبه وسوق جولستي إذا نوح كرجي ودن كي أندلس لورنشري إسلامي جاها ودن آن قلبهم قرينين أكتي سعيد الصومرين حق بدن إمام الذهبي وحكت المام يعني كاسي وكان موته آخر الصلاح وأول الفساد لأن أفعاله كانت حسنة في الحال فاسدة في المآل إمام الذهبي في سيري وحورنا يعني كان جاريدي سوحي هيدبيد وناقة وحي وقدم بيي أعماشي سنة
geeridiisu wanaagga wixii uu dambeeyay bay ahayd fasaadkana wixii ugu horeeyay afcaashiisuna buu yidhi waxay ahayd xasana fil xaal marka waqtigan la joogo camaladii uu sameynayay camalo aad u qurux badan laakiin cidhib xumo dambe oo badan ka tegay waayo ninkani wuxuu sameeyey khilaafo aanu khaliifku talinay qolo kala taliso inaanu dhalay buu uga dhintay kiina halkii buu ka sii hayay 7 sannadood buu meelaha ku sii haystay laakiin nin saalixu isaguna ahaa dawladdii waxba kama xumaanin mid uu dhalay oo kale ayaa sii dhaxlay ka dambe uu dhalay nin fiican ma ahayn wuxuu ahaa nin marka hore hooyadii faranjiye tahay islaam faranjiyada dhashay islaamihii waliba hadiyaadka boqorradu ay u siiyeen mid ka mid ah baa dhashay shangal baa la oran jiray waxaanu ahaa nin fasaad badan aad u fasaad badan ninkaas dawladdii qabsaday akhiiran dagaalo iyo burbur buu isna iskaga dhintay waxa soo baxay in lagu kaco dabeetana meeshii waxa qabsaday nin cusub oo umawiyiintii ka tirsan waxa la yidhi waayo shanjalkani wuxuu sameeyay khatarta kale waxay ahayd labadii hore waxa iyagu yiraahdeen anagu xaajibaan wilaayada umawiyiintii baa iskalo muayyad billahi ba qolka dambe ugu jiray war maxaa muayyadkani qolka kaga jiray buu yidhi muayyadkana waa ha iska tago aniga ah buu yidhi khilaafadii waliyul ahdi buu sheegtay markaa baad al-muayyad billahi inuu isagu wilaayada leeyahay wilaayadana ay wareegtay dawla al-amawiyya ama qurayshiintana wilaayada dadku noocan ma way uga dambeeyeen laakiin ninkani waa caamir yamaniya marka ma uga dambeynayaan dadku sidii looga dambeeyay awal waxay ku maamulayeen inay xaajibiyiin ama inay sultada yani ra'iisul wasaare inuu ka yahay nin محمد بن هشام بن عبد الجبار la yiraahdo umawiya baa lagu kiciyay dabeetana ninkaas meeshii inqilaabay waa qabsaday waqtiga kan waa ahdi fitna bilaabantay waa qarnigii shanaad iyo bilowgiisii 400 taariikhda hijrigii markay mareysay weeyaan ninkani markuu meesha qabsaday aamiriyiintii buu eriyay meeshii buu xoog ku qabsaday waa dawladdii buu isku dabarido laakiin looma daynin ee waxa bilaabmay waqti fitna oo madaxnimadii la isku laayo oo tiro badan dhacdo taariikhda 400 la joogo ilaa 422 laga gaadhay waa 22 sanadood